munaasabad ballaaran oo ujeedkeedu ahayd caleemasaarka caaqil ciise cabdulaahi xaaji muuse oo beesha cabdiraxmaan oo kamid ah beelweynta warsangeliya ee gobolka Sanaag ay yeelan doonto ayaa waxay ka qabsoontay howlka mahuraan ee magaalada Ceergaabo waxaana munaasabadan ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ka soo qayb galay madax dhaqameedka kala duwan ee beelaha gobolka Sanaag xildhibaano aqoon-yahan dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdulaahi Xaaji Ismaaciil oo ku hadlayay afka beesha caaqilkan caleema saaratay sidaa laadigeed beesha Cabdiraxmaan waxay ku soo dooratay ciise cabdulaahi xaaji muuse inay ka dhigato hoggaan la shaqeeya beesha nuux cumar hogaamadeeda waxay ku soo doorteen si xalaal ah oo garasho ah waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay isla markaasina soo dhaweeyay caaqilnimada ciise cabdulaahi xaaji muuse madax dhaqameed aqoon-yahan iyo dadweyne kale oo tiro badan oo dhammaantoodba ballan qaaday inay la shaqayn doonaan caaqilkan cusub. caaqilku horta waa caaqil nuux cumar marka ku xigta waa caaqil reer Sanaaga adagu markii beeshaasu iyadoo midaysan oo wada socota ay isla garatay caaqilka baanu dooranaynaa annaguna waa raacnay caaqilkan halkan la keenay oo runtii anigu aan si fiican loo waqaan saaxiibkayna in badan aanu isniqinay waxaan ugu bishaareynayaa cuqaasha reer Sanaag oo halka ka soo qayb gashay inuu yahay caaqil ka soo bixi doona karinta caaqilnimo ee loo soo igmaday oo beeshu soo dooratay caaqil ciise cabdulaahi xaaji muuse oo ka mid ah cuqaasha reer Sanaag kana mid ah cuqaasha beelweynta garab sare ee nuux cumar sida la idin sheegay beesha cabdiraxmaan ay soo xushay inta sidaa ay ku soo xuleen baanu annaguna haddaan nahay tolweynaha beesha nuux cumar aanu ku taageersanahay annuna caaqil ciise waa soo dhaweynaynaa waana la shaqaynaynaa mar haddii sidaa beeshiisii ay dhammaan lahayd waxaanu leenahay halkaa ciisena leenahay waana kula shaqaynaynaa caaqil ciise cabdulaahi xaaji muuse oo ku soo kordhay cuqaasha gobolka Sanaag ayna soo dooratay beesha cabdiraxmaan guud ahaana beesha nuux cumar waxaan leenahay waan ku hambalyeeynaa kii cadaaladda suga rabbigayna la qabto hawshiisana ilaahay u fududeeyo baanu ilaahay ka rajaynaynaa mar haddii qabiil soo xulanin waan la shaqaynaynaa waana soo dhaweynaynaa caaqilka cusub waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawow baan leenahay gacmo furan ku soo dhawow waxaanu leenahay waad ku mahadsantihiin waanu idinka aqbalay baanu leenahay sidii odayaashii hore sheegeen marka mar haddaanu nahay cuqaashii hore ee ka horreysay isaga dee waa la shaqayn doonaa beesha soo xulatay ee soo dooratayna waa hambalyeynaynaa waxaanu markhaanti maanta halkan uga nahay inuu nin ku habboon yahay boosishanka loo soo doortay ee beesha cabdiraxmaan u soo xulatay oo ay ku garab taagan tahay beelweynta nuux cumar insha allahu waxaad ahaanaysaa sida loo doortay ka ku shaqeeya cuqaashuna waa kula shaqaynaysaa sida ay caaqil ceerigaabaa tahay cuqaasha ceerigaab waa kula shaqaynaysaa tolkuna waa kula shaqaynaya adiguna sidii lagu doortay u dadaal waxaanaad ku yeeshaa daacad ahaw daacad gabagabadiina caaqilkan cusub ee ciise cabdulaahi xaaji muuse oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee colaadu ku dhex martay deegaanka bacaha ee degmada Ceelafweyn xil culus baa la doortay sida aan halka kan ay culimada iyo cuqaasha iyo xildhibaanaduba ay u sheegeen xilkaasi xil culus weeye waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay inuu fududeeyo waa shaqaynaynaa oo waa nabadgelyadaanu ka shaqaynaynaa cuqaashana waa la shaqaynaynaa insha Allah ilaahay waxaan ilaahay rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo waxaan ka xumahay waan anigu halka uga tacsiyadeynayaa dagaalkii gacan ka hadalka ah oo ka dhacay aagan gobolka Sanaag aaga darar weyne dadkii ku dhintay aad baan u tacsiyadeynayaa kii wax ku gaareen ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu ilaahay u fududeeyo oo caafimaad siiyo beelahana waxaan u rajaynaynaa walaalaha ah in ilaahay nabadgelyada la dhex dhigay ilaahay uu mid sareeca uga dhigo Barkhad Maxamuud Gedi telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Ceergaabo.